Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhawaada markale saaxiibayaal. Waa qeybtii dhexe ee intermediate-ka casharkeennii saddexaad. Casharkan maanta waxaa uga hadlaynaa beavis and position. Beavis iyo position waxa ay yihiin ayaan ku qeexaynaa, iyo sida loo xisaabiyo beaviska iyo positionka meesha oo ah meesha suuqa laga galo ama buy ama sell meesha rabta ahaato. Marka haddaan ku hormarno ereyga beavis waxaa laga wadaa isbedelka qiimaha lacagta aad sarrifayso ku yimaado kor iyo hoos midku raba ha u dhacee. Lacag walba qiimaheedu waa mid aan jaan go-nayn oo hawada hayhaabaysa, daqiiqad walbana isbedel ayaa imaan kara. Beavis waa dhaqaaqa ugu yar ee la xisaabin karo marka ay shay qiimihiisu uu isbedel, yani qiimaha hadduu imaado waa marka la xisaabin karo beaviska. arjeyna intaas sirta aad qeexitaanka sirka aad fahantay. haddii aad fahmin qoraalkan si fiican u akhri, kadibna hadalkayga inuu isku kaa waafaqi doono ayaa rajeyna. tusaale hadda ayar halkan ku bixino. tusaale haddii USD qiimaheedu uu marayo 1.2252, beavisku wuxuu noqonayaa tirada afaraad ee ka dambeysa calaamada dhibicda, yacni 1.2252 ahaa, yani wuxuu noqonayaa dhibicdan numberkii afaraad ee ka dambeeya. numberka afaraad keedu noqon karaa 1 2 3 afaraad kanu noqonaya waa 2gaas. marka beavisku tiradaas ayuu noqonaya. haddii USD qiimaheedu uu kor u kaco uu tago 1.2255, waxay ka dhigan tahay in 3 beab ay kor u kacday, yacni 52 ay ahayd 55 ayay tagtay. waxay markaas ka dhigan tahay inay 3 beab ay kor u kacday USD. haddiise ay hoos aado oo ay noqoto 1.2252, markaasna waxay ka dhigan tahay in ay 2 beabs hoos u dhacday, yacni 52 ay ahayd 50 ayay tagtay. markaana waa tiradii laga jarhayaa tiradii u dambeysa, waxay noqonaysaa 2 beabs inay hoos ayadan u dhacday. marka intaas haddii aad fahantay inaad si fiican kusii fahamsiyo ayaa isku dayaya qoraalka yarkaa oo kale. isbedelka beavisku nidaamkan ayuu maraya. tusaale ahaan haddii AUD ay ahayd qiimaheedu 1.60 deedna haddii tirada u dambeyso ay isbedesho, qiimahaas wuxuu isbedelayaa in ka yar 10 beavis. balse haddii tirada u dambeyso iyo tan ku xigta ay isbedesho, qiimahaas wuxuu isbedelayaa 10 beavis in ka badan 100 beavisna ka yar. haddiise dhanka kale midka saddexaad uu isbedelo, qiimahaas wuxuu isbedelayaa 100 beavis wax ka badan 1000 beavisna ka yar. yani hadalka inaa fahanto isku daya ku rajeynaya. yani tusaale ahaan waa ku dhahay haddii AUD ay ahayd qiimaheeda 1.6078, deedna ay tiradaas ay u dambeysa ay isbedesho, yani marka u dambeeya isbedelo, qiimahaas wuxuu isbedelayaa in ka yar 10 beavis. yani waa sheekadii xisaabaadka oo kale, yani godkan koobaad tobnaad boqolaad, yani kumaad saasaa xisaabta ay nidaamkaasi ku dhisanta sooma. tana waa sidii oo kale, wuxuu isbedelayaa in ka yar 10 beavis. balse haddii tirada u dambeysa iyo tan ku xigta uu isbedelo, qiimahaas wuxuu isbedelayaa in 10 beavis ka badan 100 beavisna ka yar. haddiise midka saddexaad uu sii bedelo, qiimahaas wuxuu isbedelayaa 100 beavis wax ka badan 1000 beavisna ka yar. tusaale halkan hadda waxaa waay 1.6078, handale qiimahaas wuxuu noqday 1.6071. waxa u dhexeeya halkan 78dan iyo 71dan kala jar. tusaale ahaanba hadda yani meesha sida ugu dhow ku fahmi kartaa kuu sheega. markaa kala jarto tirada kusoo baxayso waa 7 beavis. 7kaas intaasa la yiraahdaa, sidaas ayaa loo xisaabay. sidoo kale haddii 1.6078 uu qiimahaas uu isbedelo 1.6068, isbedel ka dhacay ayadana waa 10 beavis. wax weyn ma isbedel, 10 beavis kaliya isbedel. sidoo kale 1.60 ayuu ahaa 1.6078 ayuu ahaa, wuxuu tagay 1.6178. isbedel ka dhacay markaasna waa dareemi karta waa 100 beavis. halkaas 100 isbedelay.
haddii 1.60 toddobaatan ay ahayd 1.50 toddobaatan oo isbedel u dhacan kun bibs ayaa dhacay oo isbedel. bibs muhiimadiisa iyo sida ugu fiican aad ku fahmi kartid waa intaas. sidoo kale haddaad rabtid waxaa ku calaamadsan kartaa, haddaad xisaabtaas iyo inaad kala jarjarto dhan aada rabin, calaamadan ayaad soo taabsanaysaa, sidaan ayaa u furi kartaa oo ayaa u saari kartaa, intaan ayaa dhihi kartaa. intii adaa kala jarja isagaa si dhaqsale kuu kala jaraay oo tirada halkan kuugu soo sheegay. sidoo kale haddaad rabtidna calaamadii kalaan maalinka hore trading marka ka hadlayna idiin sheegay halkan ku jirta ii sheeg aan dhaqdhaqaaqayn, ayadana waa taasna waa soo furan kartaa. waa tanaa press range-gan waa kan, tan haddaad rabto waa isticmaali kartaa, ayadan saan ayaa usaaran kartaa. marka tan iyo tan waxay kala duwan yihiin, tanna haddaad saaratid waa kuu ooli kartaa meesheed, laakiin tan waa automatic. markaa saaratid aad saas uga qaadid meel kale haddaad taagto waa automatic isku bedeleysaa. bibs muhiimadeedu waa intaas. qodobka kale oo isaguna ahaa position waxaa waaye waa suuqa meesha laga galo intriga, yani long position iyo short position baa jira. long positionka waxaa waaye markuu suuqan halkaan imaada ayaad rabti intri inaad ka gashay, tusaale meeshaan aad ka gelaysid ayaa waxaa la yihahdaa position. calaamadan ayaa soo furanaysaa, halkaan ayay ku jirtaa, waatanaa long position waa suuqa markaa baa u gelaysid. halkaan marka dhiganaysaa intan guduudka waa inta khasaare ah ogoshahay inaad suuqa kala kulanto, dhankan kalena buluugana waa inta faa'iidada aad ugu socotid. halkaas uga haraysaa mise halkaas uga haraysa, istaraatiijigan ayaa ku baran doontaa taas, laakiin hadda inta muhiimadu waa intaan. tan kalena oo seelkana haddaad rabti suuqan marka uu halkaan tego kale aad rabti halkaan inaad kasoo gashid oo kale, ayadana tan seelkan ayaa isticmaalaysa. short position waa marka suuqa uu seelkaya, waatan stop losska intaad khasaare ogashahay iyo SL inta laga dhigto, ayadana gadaal ayaa uga tegayna. laakiin position muhiimadiisa iyo meesha laga galo isaguna waa kana. waxaan rajeynayaa markaan inaad fahantay labada eray oo kale ah bibs iyo position iyo sida u shaqeeyaan iyo muhiimada gaarka ah mid walba leeyahay. bibsna waa suuqa iyo faa'iidadiisaas ayaa laga xisaabiyaa. positionna waa meesha suuqa laga galo oo intriga laga helo. intaan muuqaalkeena afraad ku kulmi doono kana wixii. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.